kulanti wacan oo wanaagsan daawade halkan waa barta YouTube ee barta wararka qodobada warkayaga aad ku daawan doontaan anuna aan idiin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo bilaabay qorshe waliba uu ku hakinayo kursiga uu u sharaxan yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waynu isla eegi doonaa maamulka Hirshabelle waxa uu ku kala qaybsamay go'aanka ku aadan hakinta kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo uu sharaxan yahay waynu isla eegi doonaa halka madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe wali uu ku adkeysanaya go'aankiisa kaga aadan kursigaas waxa uuna sheegay boqolkiiba boqol in kursigaas uu ku soo baxayo la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waynu eegi doonaa oo markaas falanqayn ayaynu ku sameyn doonaa ciidamo horle ayaa diyaarad looga daabulay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa la geeyay Beledweyne si ay u xaqiijiyaan amniga la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo lagu wada maalinta barita ah in uu gaaro Beledweyne waynu eegi doonaa laba diyaaradood oo sida ciidamo isugu jira duufaan gorgor iyo haramcad waxay caga dhigteen garoonka Ugaas Khaliif halkaas oo markaas lagu wada maalinta barita ah in uu soo gaaro Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wafdi hordhac ah oo ay qayb ka yihiin ergada dooranayso Fahad Yaasiin ayaa Beledweyne sii gaaray guud ahaan xaaladaha ku gadaaman kursigaas ayaynu eegi doonaa guddiga doorashada waxay ku hanjabeen in markaasi tilaabo adag ay qaadi doonaan oo la xiriirta doorashooyinka Garbaharey xilli madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu ka hadlay 16 kursi ee taala Garbaharey gobolka Gado iyo waxyaabaha kaga go'aansan ayaynu isla eegi doonaa oo falanqayn aynu ku sameyn doonaa haddii Rabbi uu ka raali noqdo geesta kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu wadaa qorshayaal uu ku boobayo dhammaan kuraasta 16 ah ee taala Garbaharey waynu eegi doonaa oo markaas si wada jir ah ayaynu u falanqayn doonaa qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordhay inta warkayaga aynu ku guda jirno ayaan daawadayaal daawan doonaa aan ku xasuusiyo haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saarto gambaleelka aad furato si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkaan idinkugu soo gudbino qaybaha hoose ee commentiga noogu reeb oorahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinada aan kuu soo gudbinayno muuqaaladayna sii sheer garay oo asxaabtaada la wadaag mahadsanid ugu horeyn warkayaga aynu ku bilownay arrimaha la xiriira hoob 86 iyo sidaas oo kale Fahad Yaasiin Xaaji Daahir la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo istaagay kursigaas xilli ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu wado qorshayaal dhowr ah oo kaga aadan arinta kursiga uu u tartamayo la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Roble waxa uu ballan qaadayaa in kursigaas marnaba uusan ku soo bixi doonin Fahad Yaasiin halka Cali Guudlaawe uu Fahad u ballan qaaday kursiga ka yaala Beledweyne in uu ku soo bixi doono guddiga doorashada maamulka Hirshabelle ayaa ku gacan seeray go'aanka ka soo baxay guddiga doorashada heer federaal oo loogu hakiyay kursiga tirsigiisu uu yahay hoob 86 ee markaasi loo xiray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taas oo la filayo in markaasi ay dhacdo maalinta Axadda ah qoraal ka soo baxay guddiga doorashada Hirshabelle waxa lagu sheegay warqadda ka soo baxday guddiga heer federaal ay tahay mid been abuur ah isla markaasna aysan jirin cabasho ka soo gaartay kursiga sumadiisu ay tahay hoob 86 waxayna guddigani qabaan in markaasi marnaba aysan suurtagal ahayn in ay hakiyaan doorashada kursiga uu tartamayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kadib markii guddiga maamulka doorashada Hirshabelle iyo dhammaan wakiilada guddiyada heer federaal iyo xalinta khilaafaadka ay arkeen warqadda lagu baahiyay baraha bulshada ay farayso in la hakiyo kursiga hoob 86 oo aan markaasi wax faahfaahin iyo sababa lagu hakinayo kursigaas cabasidiisa la saacin guddiga doorashada Hirshabelle asagoo gudanaya waajibaadkiisa qaran iyo heshiisyadii madasha wada tashiga qaran iyo dhammaan habraacyada doorashada dalka waxay idin xaqiijinayaan in guddiga uusan soo gaarin wax cabasho ah ee ka timin kursiga markaas uu tartamayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay
waxay u muuqataa guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle in markaas ay ku kala qaybsameen arrinta ku aadan la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidaas oo kale in kursigiisa la hakiyay. ciidamo horle ayaa laga daadguriyay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. laba diyuuradood ayaa subaxnimadii hore ee saaka ka duushay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. waxay labadaasi diyaaradood gaareen Beledweyne. garoonka Ugaas Khaliif ayay ka degteen. diyuuradaha waxay qaadeen askar aad u fara badan oo isugu jiro ciidanka Gorgor, Duufaan, Haramcad iyo sidaas oo kale ciidanka nabad sugidda Soomaaliya. ciidankan waxaa halkaasi loo geeyay sida ay u sii sugi lahaayeen amniga la taliyaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxay sheegayaan in halkaasi ay gaartay diyaarad sida ciidamo badan oo la sheegay in markaasi ilaalo ay u yihiin Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. ciidamadan ayaa markii hore ka ambabaxay garoonka diyuuradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde waxayna sidaas oo kale hordhac u yihiin safarka la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu wado in uu ku tago Beledweyne. kursiga uu rabo Fahad Yaasiin ee Hoob 86 uu haddana ku fadhiyo Faarax Sheekh Cabduqaadir ayaa waxaa doorashadiisa qabsoomi doonta 20ka bishan ee ku beegan maalinta Axadda ah. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in goor hore oo maanta ah Beledweyne markaasi la geeyay ergadii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir dooran lahayd kuwaas oo la dejiyay goob amnigeeda aad loo adkeeyay taas oo ku taala agagaarka xerada Amison ee markaasi deegaanka Ceel Jaale. sida uu qorshuhu yahay Fahad Yaasiin ayaa sidaas oo kale u gudbi doono gudaha magaalada waxaana la filayaa in halkaasi uu gaaro maalinta Axadda iyadoo oo doorashada markaasi la sii og yahay isla markaasna lagu wado in lagu qabto xerada Amison gudaheeda. Fahad Yaasiin waxa uu kaga duwnaa doonaa dhammaan xildhibaanadii soo baxay loolanka ama kursiga uu tartamayo waxaa lagu wadaa laba meel mid in lagu qabto gudaha garoonka Ugaas Khaliif iyo sidaas oo kale ama xerada ciidanka Amison ay degan yihiin. Fahad waxa uu diiday in uu gaaro goobta doorashooyinka lagu qabanayo ama hoolka doorashada ay ka soconayso. ergada xilligani waxay ku sii xariisan yihiin gudaha xerada Amison ay ka degan yihiin Ceel Jaale halkaas oo ammaankooda aad loo adkeenayo. kursiga Fahad ayaa waxaa ka taagan cabasho xoogan iyada oo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal uu hakiyay qabashada doorashada kursigaas inkastoo uu markaasi ku gacan seeray go'aankaas guddiga doorashooyinka maamul goboleedka Hirshabelle. qoraal ka soo baxay guddiga waxaa lagu sheegay in markaasi la hakiyay kursiga uu tartamayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ee Hoob 86. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa wada qorshe ka dhan ah la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo sida markaas arrimaha la xiriira kursigaas uu ku dhaafin lahaa Beledweyne. horay waxaa ugu sugnaa ciidamo aad u fara badan oo markaasi halkaas loo geeyay sida ay u sugi lahaayeen ammaanka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe. sidaas oo kale ciidamo dhowr ah ayaa lagu daray ciidanka Beledweyne la geeyay. ciidankan waxay kaabi doonaan ciidankii horay ugu sugnaa Beledweyne. guud ahaan magaalada xilligani waxay la ciirciiraysaa ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaasi ka dejisay. ammaanka Beledweyne xilligani waxa uu yahay mid ay xaqiijinayaan ciidamo isugu jira Haramcad, Gorgor, Duufaan iyo sidaas oo kale ciidanka Dharcadda ee markaasi nabad sugidda Soomaaliya ka tirsan. Fahad inta Axadda uusan gaarin halkaas ayaa sidaas oo kale qorshaha waxa uu yahay in ciidamo dheeraad ah laga daadgureeyo Muqdisho isla markaasna la geeyo Beledweyne. wararka waxay intaasi ku darayaan in sidaas oo kale beelaha dega halkaas ay aad kaga soo horjeedaan arinta sida qasabka ah ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Beledweyne lagu geynayo. Egraan Tahliil hooyadeed horay waxay u sheegtay in marnaba aysan suurtagal ahaan karin in gabadheeda oo lagu tabayo markii ugu dambeysay in ay ku maqneed taliska nabad sugidda Soomaaliya gacantiisa isla markaasna xilligaas uu taliye ka ahaa la taliyaha amniga qaranka xilligan ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir in marnaba aysan suurtagal ahayn in beledweyne uu soo gaaro isla markaasna isaga oo xasaanad leh oo xildhibaan uu halkaasi ka soo noqdo. Ikraan hooyadeed oo hadlaysay waxay sheegtay in markaasi gabadha maqan ay ka dhalatay labada beel ee beledweyne markaas dego, isla markaasna ay sheegtay sida hadalka ay u dhigtay inay qayb ka yihiin beelaha marka la eego ugu tirada badan ee dega beledweyne, si markaas gabadhooduna ay maqan tahay ilaa iyo haatan ninka gacantiisa ay ku maqan tahay in aysan suurtagal ahaan karin in halkaas uu soo gaaro laguna doorto sida ay hadalka u dhigtay hooyo qaali Guhaad. Geesta kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble xafiiskiisa wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya waxay sheegayaan in Rooble uu wada dadaal weliba uu kursigaas ku hakinayo xilli markaas ra'iisul wasaare Rooble laba isku day oo hore oo markaas uu doonayay in uu ku hakiyo kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu ku hungoobay. Rooble waxa uu qorsheynayaa markaas safarka Fahad oo lagu wada in maalinta Axadda ah uu u ambabaxo halkaas in isor istaag lagu sameeyo. Fahad waxa uu haystaa awood buuxda oo ciidan marka la eego mar sidee bay ku suurtageli kartaa in laga hor istaago garoonka markaas in uu ka duulo. La taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa sidaas oo kale ciidamo hordhac ah beledweyne sii geystay si amnigiisa ay u sugaan, halka xubnaha xafiiska Rooble ay qorsheynayaan si waliba Fahad ay ku hakin karaan iyada qorshaha xiga ee ugu dambeeya ee u haray xilligan in uu yahay in garoonka ay ka hor istaagaan, xilli inkastoo aysan si rasmi ah u cadeyn markaas xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble cidda kursigaas uu la doonayo. Faarax Sheekh Cabduqaadir oo ah xildhibaankii 4 sano aynu ka soo gudubnay kursigaas ku fadhiyay waxa uu dalka gudihiisa kaga maqan yahay xanuun, waxa uuna ku sugan yahay dalka Hindiya isaga oo arrimo caafimaad halkaas u jooga. Rooble ayaa isku daygiisii ugu horeeyay waxa uu ahaa in markaas guddiga uu ku xaliyo in xubintii kursigaas kula tartami lahayd Fahad Yaasiin dalka uu markaasi kaga maqan yahay, sidaas oo kalena laga diiday. Waxa uu Rooble mar kale isku dayay arrimo uu ku hakinayo kursiga Hoob eber 86 markaas uu u tartamayo Fahad Yaasiin. dhammaan qorshayaashii isku daya xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa ay noqdeen kuwo shaqayn waayay, halka markii loo eego madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe uu ka soo baxay ballanqaadkii kaga aadanaa saaxiibkiis in kursigaas uu ku soo bixi karo. Cali Guudlaawe waxa uu Fahad Yaasiin Xaaji Daahir u sheegay in marnaba aysan suurtagal ahayn in beledweyne uu kursi ka waayo. Cali Guudlaawe ayaa arrimaha ugu badan ee beledweyne xilligan uu ugu sugan yahay waxaa qayb ka ah arrimaha la xiriira Fahad iyo kursiga Hoob eber 86 sida halkaas uu uga soo siin lahaa haddii beledweyne Fahad uu gaaro oo xildhibaanada baarlamaanka 11aad uu qayb ka noqdo. Cali Guudlaawe dib ayuu ugu soo laabanayaa Jowhar, waxaana halkaas ka bilaaban doono arrimaha kale ee doorashooyinka waxay hakad xilligaani ugu jiraan kursiga yaala beledweyne. Jowhar doorashadeeda waxay dhaqaaqaysaa markii laga soo dhamaado Hoob eber 86 ee uu u sharaxan yahay la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. daawadayaal guud ahaan warkii oo aad kala socoteen barta wararka waana intaa waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. haddii ay tahay boqoshadaadii kuugu horeysay subscribe noo saar gambaleelka furo si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga iyo barnaamijyaadka halkaan aan idinkugu soo gudbina. mahadsanid daawade, mar kale halkan waa barta wararka.